khubaro dhinaca ammaanka iyo xubno xilal horay u soo qabtay ayaa su'aal ka keenaya sida xilligan u dayacan yihiin qaar ka mid ah ammaanka wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya. dhacdadii xalay ee lagu dilay wasiirkii howlaha guud iyo guriyeenta ayaa waxay bannaanka keenaysaa sida aanan la isaga xilsaarin wasiirada ku cusub saaxadda siyaasadda Soomaaliya amnigooda oo qaarkood ay suuragal tahay inaysan Muqdisho ku sugnaan jirin oo dalal kale ay ka yimaadeen. baaritaano hordhac ah ayaa lagu ogaaday in 40% ay wasiirada xukuumaddu amnigoodu dayacan yahay, kuwaasi oo aanan lahayn ilaale iyo gaadiid aan xabadaha karin. sidoo kale waxaa dayac uu ka muuqda ammaanka xubnaha xildhibaanada qaarkood oo gaadiidka ay wataan gacmahooda ku wata iyaga oo aanan la socon haba yaraatee askari qura. xildhibaan Maxamuud Abukaato oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya dhowaanna gaari uu watay waxyaabaha qarxa loo dhigay kana badbaaday ayaa qiraya inuu jiro dayac haysta mas'uuliyiinta dawladda amnigooda gaar ahaan xildhibaanada iyo wasiirada. waqti badan oo la geliyo amniga ma jiro taliyaashii muxuu ahay qof mas'uuliyad qaadanayso oo maartay responsible u ah qofkii dhinto in maartay loo xisaabiyo ama wax lagu weydiiyo ma jirto. meelba wax lagu dilaa degmay ku taala taliya madax ka ah rag mas'uuliyiin ah maartay oo mas'uuliyad meeshaas qaadayso laga weydiiyaa meesha ku taalo. marka in maanta qofta wixii lagu dilo bariimid miina loo dhigo subax dambe mid muxuu ahay ban lagu tuuro maalinta mid gaarigiisa lagu horgoyo inay yimaadaan wax badan macna ma samaynayso. marka arrintan waa mas'uuliyad ay ka gaarayaan madaxda sare ee dalka. wasiirada qaar ee xukuumadda ayaa wata gaadiidkan xabadaha karin iyo dhowr gaadiidka dagaalka oo ciidamo ay saaran yihiin, waxaana wasiiradaas ay u badan yihiin kuwa miisaanka ku leh xukuumadda sida wasiirada kale ah amniga, maaliyadda, arrimaha dibadda, gaashaandhigga iyo arrimaha gudaha. wasiirada kale ee xilalka hayo dawladda intooda badan ma haystaan gaadiidkan xabadda karin. wasiirkii xalay lagu dilay Muqdisho wuxuu watay gaari noociisa uu yahay midka Soomaalida ay u taqaan Harrier. xabad lagu riday oo ka dhex baxday muraayadda hore ee gaariga ayaana sabab u noqotay geerida wasiirka. wasiir Cabbaas Siraaji oo ahaa nin dhalinyaro ah wuxuu waqtiga inta ugu badan ku soo qaatay xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya, halkaas oo uu ku lahaa saaxiibo nolol adag ay ku soo wada koreen waxna ay ku soo barteen. qaar ka mid ah saaxiibadiisa ayaa dalbanaya in baaritaan dheeri ah lagu sameeyo falka wasiirka lagu dilay, iyaga oo ka ilmeynayay inay waayeen saaxiib qaali ku ahaa. rajadayna way dhimatay. dawladda Soomaaliya rajo ka maqan. dawladda Soomaaliya dawladda rajo ka maqan. rajadayna ma dishay. waxaan dhalay raa'ifo iyo guud ahaan dhab si adag oo codsanaya inay isku soo baxaan walaalkeen. xalay jiif ma jirin. walaalkeen si wada jiraan ugu duceeyaan fagaaraha u soo baxdaan walaalayaal. inkastoo aanan laga hordhici karin baaritaanka socda ee ku saabsan dilka wasiir Cabbaas Siraaji, haddana laamaha ammaanka iyo cadaaladda dawladda ayaa laga dhul sugayaa sida loo maarayo kiiska wasiirkaasi xalay lagu toogtay Muqdisho. ciidanka dawladda ayaa inta badan habdhaqan argagax geliya bulshada ku dhaqma xilliyada ay dusha ka saaran yihiin baabuurta ay la socdaan mas'uuliyiinta, waxaana la arkaa askari si mas'uuliyad la'aan qoriga ugu waabinaya muwaadin gaari wata oo waddada maraya.